بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala baynu mahadinaynaa mahad fara badan nicamtan iyo wanaagan iyo khayrkan maamuusida ardayda iyo masaajidkan marka xigta waxaan dhammaan u mahad celinaynaa marti sharafta iskugu timi xafladan qaaliga ah si guud dawladda iyo culimada iyo dhammaan shirkadaha iyo dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay oo dhan waxaan rabaa laba qodob hadalkeenan ku soo ururiyo qodob koowaad haddaanu nahay macallimiinta qur'aanka ama barayaasha waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa jamciyadda al-nuur khidmat al-qur'aan al-kariim golaheeda fulinta sida quruxda badan ay hawsha u maamulayaan oo u soo aamudeen sidoo kale shirkadaha qiimaha badan ee waqtiga dheer la garab taagnaa taageerada waxa weeye quraanka iyo horumarintiisa maayirka oo runtii xubin weyn iyo boos weyn ugu fadhiya jamciyadda quraanka oo markaas si dhow sida ay golaha fulintu sheegay ula socda wasiirka diinta iyo waqaafta oo isaguna waxa weeye runtii galabtaan soo dhaweynayno waxaan qodobka labaad hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa dhammaan madaarista caasimadda waqooyi bari laascaanood inta galay tartanka iyo inta kaleba si gaar ah madaaris 13 ah halkan laga sheegay tartamay ardayda ay hayeen iyo quraanka ay dhigi jireen bulshada hor keenay si gaar ah baan u bogaadinaynaa ardaydii tartanka galay soo dadaalana waxaan leenahay iyagana dhamaantood si guud hambaliyaan u leenahay inta kaalmaha gali doona iyo inta kale nasiibku reebi doonaba si guud baan leenahay hambaliyo aad iyo aad ba wada mahadsantihiin